وأناقي أقصى واحد سكرية إذا ما درون جلس كسر راح وبوده دل مرة سويتي فضاي دل مرة سويتي فضاي تصور فرنسا غادي لكو غادي وركن هذه نقوس دوينا مقشو thank you أنا قرينا ولا لا thank you ودي أرسلنا والسلام يا دمان سومالوين ملك استجوبان walaalkay dalmar waxaan leeyahay marna fanaankii qiimaha badan ku soo dhawo magaalada muqdisho sida looga jecel yahay waxa laga dareemayaa sida loo soo dhaweeyay intaan wadada waxay saaka hurdada ugu soo kaceen wadadan qorraxda u soo wada istaageen waxay tahay inay yihiin fanaankooda inay ku waadi salaamaad hadlayaas intaan wadada waxay isugu soo baxeen oo dhalinyaro leh oo haween leh oo fanaan leh oo كاميرمان له أو تي في هير عالمي هير قرنبله isugu soo baxeen youtuber ka reebin qoladii social media caanka ka ahayd dhamaan waxay isugu imaadeen oo dhan waxay tahay in walaalkood dalmar soo dhaweeyaan runtii sharaf bayna noo tahay in wadanka maanta dalka dib ugu soo noqdo oo aan soo dhaweyno insha Allah showgiisana ka soo wada qayb gali doona dhamaantii waan salaamayna Ismaaciil Ark aad baad u mahadsantihiin dhamaan Soomaali weyn bahda saxaafadda hablaha quruxda badan fanaaniinta dhalinyarada mas'uuliyiinta cid walba ee halkan u soo istaagtay inay nala soo dhaweyso fanaankeenna qaaliga dalmaryare waan uga mahad celinaynaa haddaan nahay bahda fanaaniinta waan dhammaantood mahad celinaynaa waxaanu si gaar ah ugu wada faraxsannahay inaanu u soo istaagno walaalkeen waxaan leenahay magaalada marti kuma tihid soo dhawow sharaf iyo karaamo ay noo tahay inaan halkan kugu soo dhaweyno insha Allah waqti qurux badan oo asagu ugu talagalay dadkiisa inuu la qaatana waan wada qaadan doonaa insha Allah wadkuna waa maasantihiin soo dhawaada Soomaaliya ha noolaato walaalkay dalmar waxaa leenahay ku soo dhawow magaalada muqdisho magaaladii fanka iyo farshaxanka magaalo laga jecel yahay magaalo dadkeeda ay nabadda iyo isdhexgalka ay aad u xiiseeyaan waana noo farxad inaan nala joogto soo dhawaan leenahay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waa maalin weyn waaye waa maalin aad qaali noogu ah waa maalin aan soo dhaweynay walaalkeen dalmaryare waxaan u mahad celinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee iskugu soo baxay soo dhawaanta walaalkeen dalmaryare fanaanka qaaliga nagu ah waxaan ku soo dhaweynayaa fanaankeenna qaaliga ah alawaan dalmaryare soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى السلام يا دمانتين آد بعدي السلام يا والله أن شعلهاي دمان ومدر هالمقدسو أنتين صوب حذي أنتين لي صوب حذي آد بعدي والسلام يا دمانتين كل جين وهذا جعلهاي أنت يجعشين كبرنا هذا جعلهاي آديات أن ده مقدسو واسل جوجنا سديد توصلنا أي يودن بيسي ما أنت صون نقضي إلهي أمركيس الحمد لله رب العالمين فرحت وين بيتهاي ما دريم كرو درين كيجا آد بني ذي كود مع العلن يا دمانتين سولوينتا waxaan ka hadli kara ma ahan kulligiin dhamaantiin qabanqaabiyaasha inta soo qabanqaabisay inta isku xil saartay aad baad u mahadsantiin Soomaaliya I love you guys bismillaahir rahmaanir rahiim runtii saxaafadda iyo dadweynaha ka soo qayb galay aad iyo aad ugu mahadsantiin inaad waxa weeyaan soo dhaweysaan dalmar waxa weeyaan ninaan saaxiib qariib nahay soo wada nooleen waxa weeyaan bah waxbarasho ahayn bah wada fan ahayn waxa weeyaan 18 sano ka hor ayaa waxa way isku kee dambeysay annagoo bah waxbarasho ah annagoo bah fan ah annagoo bah waxa way comedian ah marka waa ku faraxsanahay mar labaad walaalkayga Sheekh Muxtaar inuu waxa weeyaan dadka dalmaryare u yaqaan laga aray Sheekh Muxtaar dhihi jiray riwaayad aan ku wada jirnay waxa way loogu bixi dalmaryare marka magacaas u baxay dalmaryare waa nin Soomaali ah marka intaas waxa weeyaan idinka filan uu idin la joogo haduu Ilaahay raad aad iyo aad u maasantiin أبوي أبيه أقنتوي مقدشو أبوي أبيه أقنتوي أدوك اعترافك مقدشو أبوي أبيه أقنتوي مقدشو أبوي أبيه أقنتوي